مدن قدومية كحجين مدن عيال سلامة إسلام كبعدي وحبذن وانهوري وقبي بران نجيستي سوجيدينتي si detailska ahayd maaragtay halkaan horay ooga tiri wasiira khadiija maxamed diiriye horta ayaan la qabaa oo wax badan oo ay qaadaan dhigtay laakiin marka la isugu yimaado nidaamkii weli 4.5 oo taagan oo 275 kuraastan ay u qaybsan tahay haddii 31 shalay beelihii ayaga ku ahaa xal ama maaragtay lagu raadinayay oo aanan xaq ahayn haddana doorasho xalaal ah haddana inta magaca loo bixiyey oo aan xaq darana meeshii ka marnayn aniga weli waxaa kufuus iga haya siday isi waafaqi karaan xaq daro iyo doorasho xalaal ah ilaan horay xaq lama rabo xalaal la rabo xalkiina lama hayo xaqiina lama hayo horta waxa ummadda Soomaaliyeed ee dadka la iskugu geeyay intaasoo beelood ah ee 31 loo dhaxaysiiyay haddana haddii tira ayaga la xisaabi lahaa ay ka badnaan lahaayeen saan aaminsanahay 90% dadka hadda beelaha ee dhammaystiran ee 61 la siiyay haddana in meeshoodii lagu sii hayo magacyo fiican haddana loogu yeero horta laba isqabata maaha tii beerdhaweyd cudur daar baa loo sameeyay waxa la yiri xaq lama rabee xal baa la rabaa haddii maantana la leeyahay doorasho xor iyo xalaal haddana sideebay isla halkii shalay xaq daradii iyo wax aanan xalaal ahayn ee dastuuriyan ay u noqonayaan oo ilal abad inay sidaas ay ku ahaadaan beelo Soomaaliyeed ee ka tira badan intii la doono ka baaxad weyn dhulka ay degan yihiin resource-ka ay haystaan 3 jeer ku soo laabmayo kuwa hadda ku helay qalinka ee ahaa xal baa la rabaa xaq lama rabo in haddana loogu xalaaleeyo dastuuriyan looga dhigo inay sii shaqayso ilal abad bagartaya waa in dastuuriyan aan laga dhigin qodobkan beerdhaweyd gentleman agreement buu ahaa wadanka oo qalalaasa ku jiro ayaa lagu saleysiyay wax dastuuri ama aan ahayn haddana waxaad moodaa in laga dhigo qodob dastuuri ah in beelo Soomaaliyeed ee doodka nabi aadam ku kulmayo in ayaga la isku hayo oo la siiyo had iyo jeer inay ahaadaan bulshada dadka hooseeya ee nus ah wahada la yajuus ilaahayna hortiisa kuma banaana walidhakari mithla hadhi al-unthayayn ilaahay quraankiisa ma una dhihin ma aragtay dadka ma aragtay ama saasheegaya qaylada iyo cadayska badan ayay laba jeer maartay ka sii maartay xaq mudan yihiin dadka kale ee maartay the silent majority ah arintaasi aniga waxaan ka qaba concern in aanan dastuurka lagu qori karin 275 awood qaybsiga inuu noqdo 31 shalay iyo 61 beelaha kale waa in haddii doorasho ayada one man one vote ay tahay reer waliba ha is ogaado tiradiisa kiilaandheera iyo kiilaangaaba waa la ogaanayaa laakiin iyaanan lagu dastuuraynin wax in cadays lagu sameeyay awood qaybsi oo jaantaar rugan ay ahay ee dad meel iskugu tagay qoryo haysta ay soo dejiyeen taayi wixii ka dambeeyo doorashada way iska caddahay Soomaaliya meel maanta inta la baxo sanduuq la dhigan karo oo awoodeeda maanta ninkii shalay la yiri nusaa tahay maanta ayagoo rag yadana taagan inuu asaga lagu doorto si xalaal ah oo ku soo baxo codkiisa way adag tahay haweenka Soomaaliyeed waa jecelnahay waa walaalahayna maalin walba ayaga hadalhayntooda kootadooda la yiraahdaa war ummadda Ilaahay abuuray rag ayaga laga sameeyay nuska laga dhigay ay kootadooda ayagoo niman rag oo Ilaahay aan nuska dhigin ayaa iyagii la soo simay waxani waa western idea and we are not going to accept ma aha wax islaam iyo diin iyo wax ay ku qatanto waa wax la soo minguuriyay ee laga keenayo wadamada kama jiraan wax annaga ay sheegayaan ahsaata tirada ay badan ay sheegayaan wadamada kama jiraan saddex xisbi bay leedahay Ingiriiska waa naqaana Labour Conservative iyo wixii kala lamid ah Mareykanka waa ognahay Democratic iyo Republic uu leeyahay annaga 9 xisbi ee meeshan la wado ee nin walba hal reer kaliya ayaa wuxuu leeyahay 60 xisbi ma gartay yaa way ninka maartay shalay waa dadkii laga qariin maanta lagu celinaya la yumdadu maratayn fi juhdin waahid ninka muuminka ah
marka waxaan rabnaa dastuurkan in annaga loo saldhigo xataa annaga guddiga doorashooyinka xataa dadku ma lihin magartaya iskaba dhaaf wax kale wahada laa yajuz maaha wax soomaalinimo ee lagu qancin karo waxyaabaha lala soo hordhigayo ee maalin weyn haddana annagoo noola soo jeedno oo soo taagan in nala cuno ma ogolaan karno dastuurkan waa in lagu salaysiiyaa ama mid muslim ha noqdo ama mid gaal ha noqdo wuxuu yahay waa garan waanahay